السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aroore baxsan waana subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 26 bisha koowaad sanadka 2023 barnaamijka aroore baxsan intuu hawada ku jira hadii uu rabbi raali ka noqdo waxa kula socodsiin doona anigu ah Nimco Cosgurow waxyaabaha saaka aad barnaamijka ku daawan doontana waxa kamid ah madaxweynaha dalka Kenya Dr William Ruto ayaa waxa uu baaq u diray hogaamiyaasha Afrika sidoo kale waxaad barnaamijka ku daawan doontaa barasabka ismaamulka Nairobi oo lagu eedeeyay inuu qayb ka yahayba awrahda soobaxyadii ay qabanayeen mucaaradka dalka Kenya sidoo kale waxaad ku daawan doontaa barnaamijka 20 kamid ah sidoo kale gobol oo Mareykan ah oo dacwad ka gudbiyay maamulka madaxweyne Biden qodobadaasi iyo sidoo kale warbixino xiiso leh ayaad ku daawan doontaa barnaamijka aroore baxsan intuu hawada ku jiro barasabka ismaamulka Nairobi ayaa waxa lagu eedeeyay in uu qayb ka yahay soobaxyada ay mucaaradka ka fulinayaan caasimadda dalka Kenya hogaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee gobolka wakiilada hoose ee dawlad deegaanka Nairobi Anthony Kiragu ayaa ku eedeeyay gudoomiyaha caasimadda dalka Kenya inuu fududeeyay soobaxa mucaaradka Kiragu oo ka tirsan isbahaysiga talada dalka Kenya haya ee Kenya Kwanza isla markaana uu xubin ka yahay Sakaja ayaa xusay in arintan lagala xisaabtami doono barasabka waxa uu sheegay in kulankaasi uu ahaa mid aan wanaagsanayn maadaama sida uu hadalka u dhigay uu hakad galiyay ganacsigii magaalada sidoo kalena uu keenay buuq aan loo baahnayn waxa uu intaasi ku daray in sidoo kale dhaqaalihii soobaxaasi ku baxay uu bixiyay barasabka caasimadda Johnson Sakaja sidoo kale qaar kamid ah wakiilada golaha hoose ismaamulka Nairobi kana tirsan isbahaysiga talada dalka Kenya haya ee Kenya Kwanza ayaa waxa ay barasabka caasimadda dalka Kenya Johnson Sakaja sidoo kale ku eedeeyeen inuu kaalin ku lahaa soo bixi siyaasadeed ee isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja One Kenya ku qabtay 23 bishan fagaaraha Kamukunji Grounds ee magaalada Nairobi hogaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee golaha wakiilada hoose ee dawlad deegaanka Nairobi ayaa tilmaamay in Johnson Sakaja laga doonayay inuu cadeeyo mowqifkiisa maadaama uu garab siinayo isbahaysiga mucaaradka ee Azimio khilaafka soo kala dhaxgalay Sakaja iyo xubnaha wakiilada golaha hoose ee magaalada madaxda dalka Kenya ee ka tirsan isbahaysiga Kenya Kwanza ayaa bilowday kadib markii uu shakhsiyaad xulafo la Azimio la Umoja One Kenya uu u magacaabay jagooyinka muhiimka ah ee dawladda ismaamulka Nairobi هاتنا دلك الصومالية مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود أي وحا والشيغين صوماليا أي تهيب الدل إسلامية دادكي سنة أي سيدو كلا مسلميين قيلنا أي سنوها أي سنين أرقق حسد على الشباب دادين تديق دلك الصوماليات دستور كيركا أو سيدا عن نولانين عن قانون كستو أو شريعة كهر إسلام كهر إيمانا يا قانون كما نقول كردل كان أقطع إلى دينتا دينتا إيه هرمرين waa maxay fududeynteeda in la fududeeyo dadku inay bartaan inay fahmaan inay maxaan ku raadayay ku dhaqmaan
يعني waxa umada caamka ah khuseeyaan qusay waxaan akhriyay ilaa 20 dastuur ku dhawaad markaan daraasaynay dastuurka Soomaalida dadkii ka tala bixiyaan kamid ahaa dastuurka ma dhameystirno oo ognahay laakiin waxaan rabaa culimada halkaana oo macallimiinteeda ay ku jiraan shuyuukhdeeda ay ku jiraan inay ugu waafaqi doonaan dastuurkan inuu yahay dastuur islaami bal ani waxaan gaaray dasaatiirta oo wadamada muslimiinta hadaad akhrisaan wuu ka fiican yahay isagoo qabya ah madaxweynaha رئيس وزراء برلمانك جهدك أي بحيان فرصة أنا هيسنا ولي أنا هي مدحوينا يسوع استاجا ده يا وحن دفاع دلك الدين تان دفاع دين توا مسؤولية الدولة ده دين يا شعب لك الإلهي ما الدين تات عنك إلهينا هنا أو دارنا الدين تا يا دلك أو دارنا ده هي كان الرومي جوابت الدجال كتاجن جهدك يسخواري إنه ولا دجال هيسنا جرى ما قلناها Soomaaliya waa dal islaami ah dadkiisu waa muslimiin sharci aan islaamka ahayna ma ay haystaan dawladeeda muslim ah shacabkeeda muslim ah saraakiisheeda muslimiin ah waxa aan ku haysana shabaabna waxa ay tahay inay dadkan u diidan yihiin islaamnimada noocaas ah arrinta marka waa inaan annagana looga helin carabkeena inay soo marto wax uun saacidi karahaya qaybtan yarta ah garsoorka iyo xuduudda ku saabsan waxay u baahan tahay tacdiil yar oo lagu sameeyo inta ka dhiman haatanna magaalada Jigjiga iyo warbixin ku saabsan waatuma gabadhii ugu horeysay ee dawlad deegaanka Soomaalida kamerad wax ku duubtay ee noqotay gabadhii ugu horeysay ee dumar ah ee muuqaal duubihii guud ahaanba dawlad deegaanka ugu horeysay ee ah halkaasiiba wax ka duubtay waxaana warbixintan inoo eegaya Muxiidiin Maxamed oo ku sugan magaalada Jigjiga waxaana igu dhalisay baahi horta loo qabay dhanka dumarka haday tahay gabdhaha culimada markay dhiganayaan xafladaha si ay gabadheeda u duubtay oo caawiso maadaama si jirin baahidaas loo baahnaa kaliya kuma eekeen inaan wax duubo muddo kadib markii aan ku shaqeeyay wax muuqaal duubaha waxa ii dheeraa oo waliba asxaabtayda iga caawiyeen dhanka habeynta muuqaaladii aan duubay magacaygu marka hore Muxiidiin waa Hodan Xasan hadda aan kula joogo waxaan ku noolahay magaalada Jigjiga waxaana ku dhashay برميل oo ka tirsan degmada Dhuxun waxbarashadeedii qayb kamid waxaan ku soo qaatay gobolka Awdal ee magaalada Boorama xagga qaybta kalena aan ku dhameystay magaalada Jigjiga waxaan soo bilaabay horta xafladan aan ku jiro 2018 dabeeqadiisii waxaana igu dhalisay baahi horta loo qabay dhanka dumarka haday tahay gabdhaha culimada markay dhiganayaan xafladaha si ay gabadheeda u duubtay oo caawiso maadaama si jirin baahidaas loo baahnaa anna hobbigayga ahayd waxaan ku dhiiriday inaan bal booska aan buuxin karo alxamdulillah haddana way ii hirgashay ma jirtaa gabdho badan aan caawiyay waan ku faraxsanahay horta alxamdulillah wax dhib ah oo saa u buuran kala kulmay ma jirto waan dhiirigelin ka sii qaaday laakiin wada waxyaabo yar yar oo wax la sheegay ahayn laakiin waxa ka badneed inta ay garab istaagsanay ee u caawinaysay dhiirigelinaysa ka badneed kaliya kuma eekeen inaan wax duubo muddo kadib markii aan ku shaqeeyay wax muuqaal duubaha waxa ii dheeraa oo waliba asxaabtayda iga caawiyeen dhanka habeynta muuqaaladii aan duubay waliba aan ku guuleystay alxamdulillah oo hadda labadii xirfadood baan isku darsaday marka waxa leeyahay habeyntaas ii dheer marka laga yimaado dhanka waxbarasho farsamo ahaan habeyntaas ii dheer kamarada waxbarasho qof bartay baan ahaa heer jaamacadeed waxaan kala haystaa 2 degree oo account iyo nutrition Jigjiga iyo management aan ka kala qaatay marka hadda ma ahayn qof kaliya ku kooban inaan xagga saxaafadda u go'o waxbarashadeedii aan muddada dheer soo wadayna waan garbooday alxamdulillah yadiina waan كستن وحبرش دماني لكن أنتي قبل ما أنك قاري كري وكايستا مرتين سنة سيوده ها إن شاء الله هرت وحلي هاي دمرني ما دبر معهن مركا قبلها ولا الله هي الصومالية وحنا الدريا
inayna wax adag oo hor istaagaya haba yaraatay aysan jirin kaliya kaaga baahan tahay dadaal iyo inaa wixii aad niyo u hayso hobigaaga yahay marka waxaan leeyahay dadaal marka wax kasta oo niyadaada ana inaad kamera dhaliso hobiga ana aad u qurux badan tahay marka wax adag ma jiraan leeyahay madaxweynaha dalka Kenya Dr. William Ruto ayaa waxa uu baaq u diray hogaamiyaasha dalalka Afrika. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa hogaamiyaasha wadamada qaaradda Afrika ku booriyay inaynan kaliya xoog saarin wax soo saarka beeraha balse ay ku dadaalaan sida tani looga faa'iideysan karo iyo soo saaridda badeecooyinka kale. Ruto oo hadalka jeediyay shirweynaha ka socda magaalada Dakar ee caasimadda dalka Senegal ayaa hoosta ka xariiqay in Afrika ay awood u leedahay inay soo saarto cunno badan oo dibadda loo iibgeyn karo. waxa uu carabka ku adkeeyay in arintan ay suurtagelin karto in la helo dakhli dheeraad ah sidoo kalena in dhalinyarada loo abuuro fursado shaqo. Ruto ayaa xusay in madaxda Afrika aan sidoo kale 60 sano kadib xilligii madax banaanida looga baahneen inay ka hadlaan cunno. hogaamiyaha dalka Kenya oo ka qayb galay dood loo qabtay ilaa 10 madaxweyne ayaa sheegay in si sare loogu qaado abuurka beeraha la doonayo adeegsiga tiknoolajiyadeed waraab sare iyo qalab casri ah. waxa uu ka digay in wax soo saarka beeraha uu noqdo mid ku tiirsan roobabka isagoo intaasi ku daray in tani ay tahay sababta wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika ay wali u wajahayaan gaajo. Ruto ayaa tilmaamay in haddii si weyn loo adeegsado waraabka beeraha iyo bacriminta inuu kobciyo wax soo saarka. dhanka kale madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in gudaha dalka Kenya ay ka jiraan fursado badan oo ay waxyaha dawladda iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay ay iska kaashan karaan mashaariicda beeraha. waxa uu shirkadaha sidoo kale sida gaarka ah loo leeyahay ka codsaday inay kabaan barnaamijka dawladda si loo dardargeliyo wax soo saarka beeraha. madaxweynaha dalka Kenya ayaa dhanka kale bangiga horumarinta Afrika ee FDB uga mahadceliyay ballanqaadka ah inuu lacag dhan 1.2 trilyan oo shilinka Kenya ah ku maalgelin doono soo saaridda cunnada qaaradda Afrika. barnaamijkan ayaa socon doona muddo 5 sano ah sida uu sheegay madaxa bangiga Akinwumi Adesina oo hogaamiyaasha Afrika ugu baaqay inay ka faa'iideystaan dhulka ballaaran ee wax lagu abuuri karo ay haystaan si ay dadkooda u quudiyaan. haatanna magaalada Hargeysa iyo Sagal. mahadsanid wariye Nimaac Askari oo ah daadihiya barnaamijka Arooriya Baxsan kuna sugan stuudiyaha dhexe magaalada Nairobi. Qormadeena koobaad saaka waxaynu ku soo qaadanaynaa higsigii rumoobay iyo kelmadii xaqiiqda noqday. dad badan oo noolaa waaye kala duwan oo waliba dul hoganayeen duruufo maareen iyo maskax u baahan ayaa haddana xaqiijiyay yoolkii iyo hadafkii ay doonayeen inay gaadhaan. dadkaasi waxay hadafkooda ku gaadheen markii maskax awood iyo waqti u hureen gaadhida hadafkooda. khaliifkii u horeeyay ee muslimiinta Abubakar Siddiq waxa uu ahaa mid naxariis badan oo u dhibirsan bulshada laakiin markii uu hogaanka muslimiinta qabtay ee qabiilooyinka qaar ka ridoobeen diinta geerida rasuulka kadib sallallahu alayhi wasallam waxa uu yidhi ma diinta ayaa nusqaami anigoo nool waxaana uu ku qaaday dagaalkii xurba ridaa waana uu ku guulaystay inaanay diintu nusqaamin muddadii uu talada muslimiinta hayay. allah subxaana wa tacaala gacantiisa iyo ta muslimiinta ayuu ku sugay islaamka kadhiisana waxa uu alla ka dhigay mid rumowday. cumar bin cabdicasiis waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay kan 5 ku noqonaya 4 khulafaa ee muslimiinta. cumar bin cabdicasiis waxa uu yidhi naftaydu waxay leedahay hiigsi waxaanay rabtaa inay meel sare gaadho. waxa uu yidhi anigoo wiil yar ah ayaan ku hamiyey inaan dhammaan luuqadda carbeed qaybaheeda kala duwan barto waanan dadaalay waanan bartay. waxa kale uu sheegay inuu ku fikirayo inuu guursado Faaduma bintu Cabdimaalik oo ahaa
amiirka muslimiinta waanu guursaday. waxaa kale uu ku fikiray inuu madiine ka noqdo barasab, taasina waa uu gaadhay. cumar bin cabdicasiis waxa uu yidhi waxaa kale oon ku fikirayaa inaan gaadho yoolka ah inaan noqdo khaliifka muslimiinta dhammaantood, waanan noqday. waxaana uu yidhi adduunyada wax kastoo aan ku hamiyey waan gaadhay. iminkana waxaan niyadda geliyey jannada oo aan u shaqaysanayaa. yool kasta oo lagu dadaalaa in la gaadho waa la xaqiijin karaa, laakiin waa inaad u adkaysataa caqabadaha ka horeeya adigoo kaga gudbaya dadaal iyo sabir. Qoromadeena labaad ee saaka waxaynu ku eegaynaa caalamka kala fog dharag iyo gaajo. dalalka dunida oo dhan guud ahaan xayawaanka aydu waa ay ku nool yihiin. dalka Mareykanka waxaa ku nool noocyo kala duwan oo ay ah, kuwaas oo tiradooda lagu qiyaasay 50 milyan oo ay. tirada dadka Mareykanka ayaa lagu qiyaasay 13 milyan oo qof, waxaanay taasi ka dhigan tahay ayda ku nool in 6 qof ee Mareykanka ahba uu hal ay ku soo beegmayo, taas oo muujinaysa badnaanta ayda ku nool dalkaasi. waxaa kaloo iyana jirta in daryeelka ayda kaliya uu sanadkii ku baxo celcelis ahaan kharash dhan $270 oo Mareykanka, waxaana uu noqon karaa mid ka badan ama wax ka yar ka hooseyn kara, iyadoo taasina ay ku xiran tahay hadba nooca raashinka iyo daryeelka caafimaad uu qofku ku bixiyo ayga. haddii uu aygu xanuunsado waxaa dhici karta in kharashka ku baxaya uu ka bato kharashka loo qoondeeyey. sanadii 2013 qiyaastii 70% qoysaska Mareykanka ayaa haystay noocyo kasta oo xayawaan ah, laakiin sanadii 2022 tirada qoysaska Mareykanka ee xayawaanada dhaqda waxa ay gaadheen 70%. guud ahaan dunida ayaa iyana la cadeeyay in kharashaadka lagu bixiyo xayawaanada ayda iyo bisadaha ay gaadho sanadkii 11 milyan oo dollar, iyadoo dhinac kalena ay dunida ku nool yihiin dad aadami ah oo sabool ah isla markaana aan haysan xataa nolol maalmeedka caadiga ah, iyadoo waliba jiraan bulshooyin gaajo iyo macluul u dhimanaya. Qoromadeena saddexaad ee saaka waxaynu ku soo qaadanaynaa waxtarka shimbiraha hawada lalaya. nadaafadda iyana ay wasakh yeelin ayaa muhiim u ah qalabka xidigiska iyo hawada sare loo adeegsado si ay uga shaqeeyaan sida ugu wanaagsan. sidaa darteed xarunta European Space Station kuna taala dalka Faransiiska oo 22 dawladood xubno ay ka kala yihiin, waxaana la dhisay sanadkii 1975 ayaa shaqaale ka dhigatay shimbirka gorgor si uu ilaaliyo nadaafadda xaruntan. gorgorkan oo lagu magacaabo Nala ayaa u shaqeeya sida qof ilaaliye ah, isagoo ka ilaalinaya shimbiraha iyo dhammaan wixii nadaafadiisa waxyeello u geysanaya. waxaa kale oo iyaguna ka ilaaliya dhammaan xayawaanada kale ee hawada maraya, kuwaas oo qaybta sare ee xarunta nadaafadda iyo waxyeello kaleba u geysanaya. Adreen oo ah ninka leh gorgorkan ayaa u tababaray inuu noqdo mid hawlahan ilaalinta nadaafadda si fiican uga soo baxa. halka qoromadeena afraad ee saaka aynu ku soo qaadanayno daawada shakiga iyo cabsida khiyaaliga ah. Neef waa maamule ku-xigeenka shirkadda tiknoolajiyadda, waxa uu maamulaa hanti aan ka yarayn $1 bilyan oo dollar. Nafeyn waxa uu si fudud horumar uga sameeyay shaqadiisa, dadkuna aad ayay u jeclaayeen. laakiin waxa uu dhageystay weero maskaxdiisa aaminsantay oo ah in aanu ahayn qof wanaagsan, shaqadan uu hayaana aanay u qalmaynin. Nafeyn waxa uu gaadhay heer go'aamadiisii ganacsiga ahaa uu si fudud ku gaari jirayna ay ku adkaadaan, kalsoonidu naftiisa ku qabeena yaraato. fikradan khaldani waxa ay burburiyaan horumarka qofka iyo guud ahaan labadaba. Nafeyn waa maamule ku-xigeenka shirkadda tiknoolajiyadda, waxa uu maamulay hanti aan ka yarayn $1 bilyan oo dollar. Nafeyn waxa uu si fudud horumar uga sameeyay shaqadiisa, dadkuna aad ayay u jeclaayeen. laakiin waxa uu dhageystay weero maskaxdiisa ay aaminsantay oo ahayd in aanu ahayn qof wanaagsan, shaqadan uu hayaana aanay u qalmaynin. Nafeyn waxa uu gaadhay heer go'aanadii ganacsigiisa ahaa uu si fudud ku gaari jirayna ay ku adkaadaan, kalsoonidii uu naftiisa ku qabeena ay yaraato. fikradan khaldani waxa ay burburiyaan horumarka qofka iyo kan guud ahaan labadaba. cabsida iyo shakiga khiyaaliga ah waxa dawadiisu ay tahay inuu qofku u badiyo alla ka cabsiga, isaga oo salaada faralka ah waqtigooda ku dadaala, kuna tukada masjidka iyo sunnayaasha sida salaatul leylka, soonka, maalmaha isniinta iyo khamiista ama bishii 3 mar. dhammaan xumaanta ka fogow sida xasadka, xanta beenta, tuugada iyo wixii la mid ah. qodobkeena u dambeeya ayaa ah xikmadaha maanta. 1 erey kaliya oo nabada ayaa ka qiimo weyn kumanaan erey oo dagaal ah. 2 daqiiqada kaliya ayaa maalin dhan bedeli karta noloshaada. maalin kaliya ayaad bedeli kartaa, qof kaliya ayaa dunida bedeli kara.
3 si karti leh u shaqee si aad si wanaagsan u noolaato. 4 haddii aanad si wanaagsan u qaban karin hawsha laga rabo isku day inaad u ekaysiiso inaad sidii ugu wanaagsaneed u qabatay. 5 marka aad doonayso inaad ilmahaaga u hesho waxbarasho fiican waa inaad u raadiso macallin fiican laakiin ha raadinin dugsi wanaagsan waayo cilmi baadhis ayaa muujisay sida uu farqi weyn ugu dhaxeeyo ardayga guushiisa iyo dugsiyada xataa fasalada isla dugsiga kaliya. 6 qirashada guushaadu waa dhabada guusha lagu gaadho bar waa qaldamay kadibna sax oo raac dariiqada guusha dhabta. 7 aqoontu waa macluumaad lagu sheegay aqliguna waa kan kaydiya oo dhaqan geliya. 8 dulqaadku waa qaybta ugu muhiimsan ee guusha. 9 si aad u guulaysato mararka qaarkood waa inaad halista iyo khataraha u bareedhaa. iminkana aan dib idiigu celiyo stuudiyahayga Nairobi. hagaag sagalo magaalada Hargeysa ku sugan aad ay u mahadsantahay wali waxa si toos ah u daawanaysa barnaamijka Aroori Baxsan ee Shakaal TV. Mareykanka ayaa waxa laga soo warinayaa in 20 gobol oo halkaasi ku yaala ay dacwad ka gudbiyeen maamulka madaxweyne Biden. ilaa 20 gobol oo ka tirsan Mareykanka oo leh xeer ilaaliyaal guud oo sidoo kale ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa ku dacwadeeyay maamulka Biden isbedelada waaweyn ee uu ku sameeyay siyaasadda socdaalka taasi oo ay sheegeen inay siyaasadda uu u bedelay ay sidoo kale ay ka hortagaysa muhaajiriinta balse ay wali u ogolaanaysa ilaa 360,000 oo muhaajiriin ah inay si sharci ah sidoo kale u soo galaan Mareykanka sanad kasta kuwaasi oo ka imaanaya Cuba, Haiti, Nicaragua iyo sidoo kale Venezuela. dacwadda oo loo gudbiyay maxkamadda federaalka ah oo ku taala Texas ayaa ku eedeysay maamulka Biden inuu si sabab la'aan ah u abuuray isbedelada uu sameeyay dhawaan iyo sidoo kaleba talaabis awoodeed. hormuudka kooxda dacwadda gudbiyay waxa kamid ah xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Texas Ken Paxton kaasi oo sidoo kale hore ugu guuleystay inuu si ku meel gaad ah u joojiyo sharciyada cusub ee dhinaca socdaalka ee hoos yimaada madaxweyne Joe Biden. waaxda arrimaha gudaha ee Mareykanka arintan kama jawaabin isbedelada dhinaca socdaalka ah ee uu ku dhaqaaqay madaxweyne Biden ayaa ah kuwii ugu waaweynaa ee lagula tacaalo imaatinka muhaajiriinta ku soo qulqulaya Mareykanka tani markii uu xilka qabtay 2 sano ka hor. 4 dal ee Cuba, Haiti, Nicaragua iyo sidoo kale Venezuela ayaa kuwa ugu badan ee ay ka yimaadaan muhaajiriinta sida sharci darrada ah kaga soo gudba xuduudka Mareykanka. wasaaradda maaliyadda dalka Kenya iyo sidoo kaleba xildhibaanada ayaa waxa ay ku heshiiyeen lacagihii CDF-ta kadib ismariwaa taagnaa 2 cisho oo ku saabsanaa in wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe aynan soo saarin lacagaha horumarinta deegaanada ee NGO sidoo kalena CDF ayaa ugu dambeyn shalay arintaasi laga heshiiyay. waxa is afgarad gaaray xildhibaanada baarlamaanka iyo wasaaradda maaliyadda. tani ayaa timid kadib markii uu gudoomiyaha baarlamaanka Moses Wetangula uu kala dhexdhexaadiyay mudanayaasha iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Professor Njuguna Ndongo. xubnaha golaha qaran ee xeer dejinta ayaa walaac ka muujiyay in lala soo daahay bixinta 44 bilyan oo shilin oo loogu talagalay deegaan baarlamaaneedyada dalka Kenya. isniintii ay ahayd markii in ka badan 300 oo xildhibaano ah oo uu Mombasa uga furmay shir la qorsheeyay inuu socdo 5 cisho ay kulanka isaga baxeen iyagoo dalbanaya in lacagta la soo saaro ka hor inta uunan tababarku sii socon. Wetangula ayaa maanta sheegay in wasaaradda maaliyadda ay bixisay 4 bilyan
oo ay lacag dheeraada rajeynayaan toddobaadka dambe. gudoomiyaha guddiga lacagahan ee baarlamaanka Muuse Sirma ayaa sheegay in marka la gaaro isbuuca dambe ay heli doonaan ilaa 10 bilyan oo shilinka Kenya ah. hagaag wali waxaa si toos u daawanaysa barnaamijka aroori baxsan ee Shakaal TV. Ruushka iyo Pakistan ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loola shaqeyn lahaa xukuumadda Taliban. Ruushka iyo Pakistan ayaa wada hadallo ay yeesheen Arbacadii waxay ku sheegeen baahida loo qabo in si wax ku ool ah loola shaqeeyo ururka Taliban ee ka taliya dalka Afghanistan. hase ahaatee waxay meesha ka saareen in aqoonsi rasmi ah la siiyo hogaamiyaasha islaamiga ah ilaa ay sidoo kale wax ka qabanayaan walaacyada caalamiga ah ee laga qabo xuquuqda haweenka iyo waliba inay soo dhisaan maamul loo dhan yahay. ergeyga ruushka u qaabilsan Afghanistan Zamir Kabulov ayaa hogaaminayay wafdi ka socday ruushka oo wada hadal kula yeeshay Islamabad mas'uuliyiinta Pakistan, wuxuuna mas'uuliyiinta Pakistan uga warbixiyay kulamadii uu horaantii bishan kula yeeshay Kabul mas'uuliyiinta ururka Taliban. ila wareedyo sarsare ee Pakistani ah ayaa u sheegay ayaa sidoo kale arintan ka hadlay in Kabulov uu sheegay in Moscow ay sii wadayso la macaamilka ururka Taliban balse xilligan lagu guda jiro aynan ka fikireynin inay aqoonsi rasmi ah siiso hogaamiyaasha Afghanistan. ila wareedyada ayaa laga soo xigtayba ergeyga ruushka inuu sidoo kale kula taliyay mas'uuliyiinta Taliban inay u dhaqdhaqaaqaan sidii ay u yegleeli lahaayeen dhismaha dawlad loo dhan yahay iyo xal ay sidoo kale u helaan amuuraha la xidhiidha xakameynta haweenka, isagoo sheegay in haddii aan sidaasi la helin inaanu jiri karin in sharciyad caalami ah la siiyo dowladnimadoodu, sidoo kalena aanu dalka Afghanistan ka heli doonin adduun weynaha taageero la taaban karo. bayaan kooban oo ka soo baxay dowladda Pakistan ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay xooga saareen baahida loo qabo in si dhab ah loola shaqeeyo xukuumadda ku meel gaadhka ah ee Afghanistan. ila wareedyada ayaa sheegay in Pakistan ay sheegtay inaynan ka fikireyn inay haatan aqoonsi rasmi ah siiyaan ururka Taliban balse ay talaabadaasi kala siman yihiin beesha caalamka. hagaag intaasina waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii aroori baxsan oo si toos ah uga daawanayseen Shakaal TV. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Nimco Cusgurow. intii la qayb qaadatay ayaan sidoo kale u mahad celinayaa. tani kulantideena dambe anagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.